magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay kulamo ay la qaateen madaxda maamulka Hiirshabeelle saraakiisha ciidamada maamulka Hiirshabeelle ee ku sugan Beledweyne kuwa dawladda Soomaaliya ciidamada AMISOM iyo sidoo kale korneelka lagu magacaabo Nuur Dheero oo muddo badan ka soo horjeeday maamulka Cali Guudlaawe Xuseen ugu horeyntii madaxweynaha Hiirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Hagar Axmed Dabageed ayaa heshiis la gaaray sargaalkii uu hogaaminaya kacdoonka gobolka Hiiraan ee ka soo horjeeday muddo maamulka Hiirshabeelle Nuur Dheero ay wehelinayeen odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ayaa madaxweynaha Hiirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa waxa ay kulan kula qaateen magaalada Beledweyne waxaana la soo afjaray kacdoonkii hubaysnaa ee ka taagnaa gobolkaasi muddo badanba korneelka oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada booliska Hiirshabeelle ayaa la sheegay inuu Cali Guudlaawe ka raali galiyay qaladkii ka dhacay isagoona qaatay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo maamulka Hiirshabeelle waa sidoo lagu xusay war ka soo baxay madaxtooyada Hiirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa bogaadiyay tallaabada uu qaaday korneelka oo furo u ahaa sidii wada hadal loola gali lahaa jamhadii muddadaba ka soo horjeeda maamulka Hiirshabeelle ee kacdoonka gobolka Hiiraan marka laga reebo Generaal Xuud oo muddooyinkii dambe ku sugnaa Muqdisho madaxweynaha Hiirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo waayihii dambe kulamo kala duwan ka wada magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo la qaadanaya waxgaradka gobolka beelaha ka soo jeedo ururada qaybaha bulshada saraakiisha ciidamada ayaa ugu dambeyntii maanta soo afjaray muddaba tabashadii halkaasi ka taagneed oo ay qabeen ciidanka ka gadoodsanaa oo muddo ka soo horjeeday maamulka Hiirshabeelle korneel Nuur Dheero ayaa qayb ka ahaa saraakiisha ugu adag ee kacdoonka gobolka Hiiraan horkacayay kuwaas oo caqabad weyn ku ahaa Cali Guudlaawe muddo badanba maadaama tagitaanka Beledweyne ay caqabad ka haysatay muddo sanad ka badan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo welinaya madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa shirgudoomiye maanta kulanka guud ee amniga maamulkaasi oo ka dhacay magaalada Beledweyne kulanka waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ammaanka gobolka Hiiraan kan Beledweyne xoojinta howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada maadaama lagu wada inay ka dhacdo dhawaan doorashada kuraasta golaha shacabka ee xildhibaanada dawladda Soomaaliya ee baarlamaanka 11 saraakiisha ciidamada xoogga taliyaasha ciidamada Gorgor iyo Haramcad iyo saraakiisha AMISOM ayaa madaxweyne Guudlaawe la wadaagay qorshaha amniga lagu xaqiijinayo amniga iyo xasilinta magaalada Beledweyne madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabeelle ayaa faray saraakiisha ciidamada amniga magaalada inay toddobaadkan gudihiisa isbedel amni oo sugan laga dareemo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulanka uu shirgudoominayeen madaxweynaha Hiirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa waxaa ka qayb galay wasiirka amniga Hiirshabeelle taliyaha qaybta 27 ee ciidanka xoogga taliyaasha guutada 4-5 ee qaybta 27 taliyaasha ciidamada booliska Hiirshabeelle taliyaha hay'adda nabad sugidda gobolka Hiiraan taliyaasha ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee howlgalka u jooga Beledweyne iyo saraakiisha ciidamada AMISOM magaalada Beledweyne ayaa kamid ah magaalooyinka loo asteeyay inay ka dhacdo deegaan doorashada labaad waana midda labaad ee maamulka Hiirshabeelle oo 25 kursi oo deegaan doorashadooda tahay Hiirshabeelle si gaar ah gobolka Hiiraan ee xildhibaanada baarlamaanka 11 ee dalka dhawaan doorashadooda ay ka bilaaban doonto madaxweynaha Hiirshabeelle ayaana saraakiisha ciidamada ku ammaanay sida ay u dardargelinayaan amniga magaalada isagoona ugu baaqinay si laba jibaaraan Guudlaawe ayaa soo gabagabeeyay intii badneedba intuu ku sugnaa magaalada Beledweyne tabashooyinkii ka taagnaa maamulka Hiirshabeelle ee laga qabay isagoona ugu dambeyntii qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka badbaadada gobolka Hiiraan ay kulan la qaatay kuwaas oo ay kala hadlay sidii tabashadooda loo xallin lahaa isla markaana qayb uga noqon lahaayeen maamulka Hiirshabeelle oo awoodooda ciidan ugu beeri lahaayeen dhankiisa Generaal Abuukar Xuud oo waayihii dambeba ku sugnaa magaalada Muqdisho waayahan warbaahinta kama soo muuqan balse waxa uu sheegay in loo dhigay sharqool siyaasadeed oo ay ka dambeysay filla Soomaaliya sida daraadeedna Guudlaawe loo geeyay Beledweyne xogaha ayaa sheegaya in intii badneedba tabashadiisa la xalliyay isla markaana maalmaha soo aadan uu dhankiisa imaan doona magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan si uu fadhi gooni oo la qaata madaxweynaha Hiirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Hagar Dabageed taas oo lagu xallinayo tabashada uu ka qabo maamulka Hiirshabeelle oo hogaamiye Cali Guudlaawe Xuseen Bismillaahi Raxmaani Raxiim aad iyo aad ayaad mahadsantihiin madaxweynaha dowladda Hiirshabeelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hiirshabeelle ayaa maanta kulan la qaatay korneel Nuur Dheero oo ay weheliyaan saraakiil ciidanka qalabka sida nabadoonno iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Hiirshabeelle kulanka maanta taliya Nuur Dheero waxa uu madaxweynaha dowladda Hiirshabeelle uu siiyay raali gelin
bacdama hadallo qadaf ah ay ka dhaceen meeshaasna waxaa ka dhacay runtii isfaham guud oo ballaaran madaxweynuhuna iyo taliyuhuna waxay ku wada ballameen in laga wada shaqeeyo dowladnimada taliya Nuur Dheere hore waxa uu ka tirsanaa wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska dowladda Hirshabeelle wuxuuna ballan qaaday inuu shaqayn doono hay'adaha amniga la shaqayn doono ciidanka uu ka tirsan yahay ee booliiska dowladda Hirshabeelle uu la shaqayn doono hadduu rabbi karaal noqdo madaxweynaha waxa uu magaalada Beledweyne u yimid inuu xalliyo dhammaan wixii tabashooyin ah ee jira kulankan maanta iyo isfahamkan dhacana kulamadii baryahan socday ayay daba socdaan waxaan rajaynaynaa insha Allah in qof kasta oo tabasho ama wax si u tabanayso in guul laga gaaro hadduu rabbi karaal noqdo madaxweynuhuna waa uu ku wada guuleysay dhammaan waxyaabihii taagnaa ama ka taagnaa gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne taliyuhuna raaligelinta madaxweynaha uu siiyay madaxweynuhuna waa uu aqbalay waa uu qaatay meeshaana isfaham guud oo guul ah ayaa ka soo baxday aad iyo aad ayay u mahadsantihiin waxgaradka iyo qaybaha kale ee bulshada gobolka Hiiraan oo intooda badanba ka soo horjeeda maamulka Hiirshabeelle iyo siyaasiyiintooda ayaana haatan u muuqdo in ay madow guud muujiyaan maadaama la xalliyo tabasho ay qabeen guud laawana inta ugu badan beelaha degan gobolka Hiiraan waxgaradkooda uu kulamo la qaatay inta uu ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan inta ayaan ku soo gabagabeynaa warbixintan gaarka daawada haddii ku soo gaarta sii share garay saaxiibadada kale la sii wadaag page-keena Somali Barays ku soo biir oo follow iyo like saar YouTube-keena sidoo kale booqo si aad u hesho xogaha aynu halkan ku soo gelino muuqaalkana like noo saar mahadsanideen